Shirkadda ugu weyn ee isgaarsiinta Soomaaliya ee magaceeda la yiraahdo Hormuud Telecom Foundation, oo ah shirkad bixisa adeegga internetka iyo taleefanka, ayaa soo saartay war-saxaafadeed markii maanta uu khadka internetka hawada ka maqnaa koonfurta Soomaaliya. War-saxaafadeedooda waxay ku sheegeen hadalka wax sidan ayuu u qornaa: waan ka xunnahay inaan kula wadaagno in adeegga internetka uu go'ay maanta 10 ama 4 barqanimo. Baaritaan hordhac oo aan sameynay wuxuu sheegayaa in ciladu ay ku timid kadib markii dabaylo xoog badan ay sababeen in badweynta Hindiya ay ka dhacdo, arrintaana uu saameyso ku yeelato xiriirka internetka keena. Farsamayaqaanna waxa ay ku xallin doonaan ciladan waqti kooban haddii Ilaahay idmo, sida hadalka u dhigay. Naga raali noqdo culayska idinku yimid go'itaanka internetka. Dad badan ayaa ka walacsanaa ku noolaa dibadda ama qurbaha ehelkooda oo maanta ay la xiriirin, inkastoo mararka ay imaanayso ciladan xilli shalito arrintan ayaa timid kadib markii shalito dowladdii xukuumaddii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre codka kalsoonida ay baarlamaanka ay kala noqdeen. Dad badan ayaa u maleeyay in arrinta internetka arrimahaas la xiriirta. Lama soo oga sababta rasmiga ah ee ku saabsan internetka go'ay, inkastoo Hormuud ay soo saareen wariye Cabdinaasir Maxamuud Xaaji Axmed, Cabdinaasir Qujufa, Dulqaad Media, freelance journalist and photographer.